madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa maanta kulan xasaasi ah la yeeshay xubno ka tirsan golihiisa wasiirada siyaasiyiin reer Puntland iyo odayaal dhaqan. kulankan waxaa diiradda lagu saarayay aqoonsigii Israa'iil ay siisay maamulka Somaliland iyo sidii Puntland ay u cadeyn lahayd mowqifkeeda ku aadan aqoonsigaasi Israa'iil ay ugu dhawaaqday maamulka Somaliland. maalmihii ugu dambeeyay waxaa isha si weyn loogu hayay oo ummadda Soomaaliyeed ay sugaysay mowqifka Puntland iyadoo weliba lagu xamanayay maamulkaasi Saciid Cabdullaahi Dani in ay qorsheynayaan mid la mid ah midka maamulka Somaliland ay loogu dhawaaqay ee markaasi gooni goosadka. waxaa sidoo kaleeto Saciid Cabdullaahi Dani lagu xamanayay inuu qorsheynayo qorshayaal kale oo waaweyn oo liddu ku ah midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed. ugu dambeyn maanta ayay maamulka Puntland kulan xasaasi ah ka yeesheen sidii markaasi diiradda loogu saari lahaa mowqif midaysan looga qaadan lahaa go'aankaasi Israa'iil ka soo yeedhay ee Somaliland lagu aqoonsaday. kulankan wuxuu ku soo beegmayaa xilli shalay toon oo madaxweynaha Puntland madaxtooyada Garowe uu ku qaabilay qunsulka Ethiopia u qaabilsan Puntland Tagase Lambano oo markaasi ah ergey gaar ah oo markaasi ugu ama qunsul markaasi Ethiopia u qaabilsan dhinaca Puntland isla markaana ay halkaasi ku gorfeeyeen go'aanka iyo sidoo kaleeto mowqifka ama ay ku wadaageen xogaha go'aanada dhinaca Ethiopia iyo sidoo kaleeto mowqifka Puntland. haddaba maxaa ka soo baxay kulankaasi xasaasiga ee madaxweyne Dani uu la yeeshay siyaasiyiinta wasiirada iyo sidoo kaleeto mas'uuliyiinta kale ee reer Puntland? miyay aqbashay Puntland aqoonsigaasi Israa'iil? miyay cambaaraysay? go'aankoodu muxuu yahay ka Puntland ahaan? saddex qodob oo muhiim ah ayaan halkan idinkula wadaagi doonaa hadduu allayno. waxaan dhinaca kaleeto dul istaagi doonaa dowladda la aqoonsan yahay ee markaasi Yemen ee Sacuudigu uu taageero ayaa ku dhawaaqday in ay bartilmaameedsan doonto goob walba oo Yuhuudda laga siiyo deegaanadaasi Somaliland. bartilmaameedna uu u noqon doono tallaabo adagna ay ka qaadi doonto maamulka Somaliland. hanjabaado ayaa iska soo daba dhacaya oo maamulka Somaliland loogu hanjabayo haddii ay ku dhiirato in Yuhuudda ay iska siiso saldhig military badahaasi markaasi sida gacanka Baabilmandab iyo weliba badweynta Soomaaliya qaybta Somaliland ku aadan inay bartilmaameedsan doonaan. Soomaaliya iyo Yemen ayaa xuduud kala dhinaca badda. haddaba hanjabaadaasi maxay noqon doontaa ama maxay noqon kartaa? tallaabadaasi ma qaadi kartaa dowladdaasi Yemen? iyadana waan eegi doonaa. xogihii ugu dambeeyay dhinaca diblomaasiyadda waxyaabaha u hirgalay Israa'iil iyo sidoo kaleeto Somaliland ayaan iyadana soo qaadan doonaa. soo dhawaada idinkuna aragtidiina igula wadaaga qaybta commentiga. aan ku bilaabay Puntland ayaa la sugay. shalay waxaan idinla wadaagay Jubaland madaxweyne ku-xigeenka oo hadlay inay Jubaland ay maamul goboleed tahay, inay arrimaha masiiriga ee noocan oo kaleeta dowladda federaalka ay Jubaland uga dambeynayso, mas-uuliyadana ay dowladda federaalku qaaday, Jubaland aysan lug ku lahayn oo waxyaabaha aysan ka hadlaynin, aysan u oolin, shaqadeedana aysan ahayn, ku ixtiraamayso dastuurka iyo qodobada sida gaarka dowladda federaalku loo siiyey inay tahay. Jubaland waan isla ogeyn intaa. Puntland maanta ayuu Dani la shiray golihiisa wasiirada iyo weliba siyaasiyiin iyo odayaal dhaqan. maalin dhaweydna reer Puntland way hadleen oo wada ogsoonaydeen odayaal dhaqan baa hadlay oo culimadiin baa hadlay oo cambaareeyay oo ka hor yimid. haddaba arrimaha la isweydiin baa la sugayaba waxay tahay war Puntland maxay samayn doontaa? war Puntland waa la xamanayay oo xam badan baa jirtay oo lagu xamanayay wax sax ah lagama haynin runta marka laga hadlo, laakiin xam badan baa la hayayo. Dani wuxuu qorsheynayaa inuu gooni goosad ku dhawaaqo. Dani wuxuu qorsheynayaa inuu aqoonsado asagana Israa'iil iyo Somaliland waxay warwaraaqanayaan uu qayb ka noqdo. Dani wuxuu qorsheynayaa wax ka duwan oo glindi ku ah midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed ayaa aad loo hadalhayay. waxaa sidoo kale walaac badan ku haysay ummadda Soomaaliyeed aamusnaanta Puntland iyo Jubaland. waxay la aamusan yihiin. maamul goboleedyada kale waa hadleen, waa cambaareeyeen, waa laga mudaharaaday, laakiin labadaasi maamul lagama mudaharaadin, maysan cambaaraynin, manaysan soo dhaweynin oo way aamuseen. aamusnaantaasaa marka walaac badan bulshada Soomaaliyeed ku haysay. maanta ayuu Dani la yeeshay
kulan xasaasi ah golihiisa wasiiradii odayaal dhaqan iyo waliba siyaasiyiin waxaa diiradda lagu saaray aqoonsigaasi Israa'iil ay siisay Somaliland waxaa looga wada hadlo la gurfeeyay mowqif midaysan sidii Puntland looga qaadan lahaa arrintaasi balse waxaa la isku afkartay gorfayn dheer iyo wada xaajood waxay Puntland soo wadaa inay ku dhawaaqdo koow in Puntland ay uga dambayso dowladda federaalka arrimaha diblomaasiyadda ee dibadda in Puntland aysan iyadu door u yeelan ahayn ka hadalkeeda iyo waliba cambaaraynteeda iyo ka shaqaynteedaba talaabadaasi Israa'iil ay u qaaday Somaliland in Puntland ay waxa weeye ay ugu baaqayso dadka Soomaaliyeed inay markaas iskugu yimaadaan shirweyne looga arinsanayo midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed in Puntland ay cadaynayso inay xubin ka tahay dowladda federaalka oo maamul goboleed ay tahay balse arrimahan dowladda federaalka iyadu loo dhaariyay iyaduna ay gabaabsi ama iyadu gaabis uu ku imaaday in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud isagu uu kala dirahayo ummadda Soomaaliyeed xilligii doorashada ay soo dhowdahay Puntland aysan marna aqbali doonin in markaasi la sameeyo muddo kororsi ayna u taalo go'aan ay ka qaadan doonto muddo kororsi haddii ay dhacdo marka Saciid Cabdullaahi Dani wuxuu isku garaacday waxa weeye meeshii durbaan caadi ah oo ka tumila biro qaw la birihi durbaanku kala duwan yahay kala dhawaaq duwan yahay dhawaaq kale to dhawaaqi la sugayaan ahayn ayuu horta Dani soo wadaa waa xogaa hoose la soo gaaray weeye marka durbaan kale to tumanaya gow annaga nooma taalo waa wixii shalay Jubbaland ka soo baxay annaga nooma taalo door kuma lihin dowladda federaalka mas'uulka iyadii baa dalka sii kala diraysa iyadii baa tu kala sii kala diraysa muddo kororsi ma yeelayno sidaa ma aqbalayno kan ma aqbalayno kan ma wax noocaasa ayaa daqiiqadaha inagu soo aadan waa suurtagal waliba muuqaalkan inta uusan hawada gelinba inay soo gashaa suurtagal hadda halkan ila soo gaadhay inay soo gasho warqada iyada waa xogta hordhacina soo gaadhay inay soo gashaa suurtagala Dani marka qorshahaas uu soo wadaa ma cambaaraynin ma soo dhaweynin kama hadlin waxa weeye arrimihiisii uu markaas u darna ayuu waxaana shirku magaciisu u ahaa arrimaha aqoonsiga Israa'iil ayaa looga hadlayaa balalaha hadana arrimo kale taa meesha la soo taagay si kasta noqotaba Puntland arrinta halkaas ay ka bootay haddii doorashada si sax u dhici weydo annaguna waxaan qaadanaynaa bay dhaheen go'aan kale oo Puntland u yaal go'aankaas marka shirka badan ku jira ma sida Somaliland bay dhihi doonaan annagu Puntland haddaan ay qayb kama nihiin dowladda federaalka annagu waxaan nahay jamhuuriyadda Puntland miyaa nahay bay dhihi doonaan waayo kulankan waxaa ka horeeyay kulan xasaasi ah oo Saciid Dani uu shalayto madaxtooyada kula yeeshay mas'uuliin uu hogaaminayo qusulka Ethiopia u qaabilsan Puntland ama ergeyga Puntland Ethiopia u qaabilsan Puntland ninka la yiraahdo Lambano waxaa la dhahaa Tagese Lambano baa la yiraahdaa ninkaas ayuu kulan la qeeyay saraakiil la socotay ayuu kulan la qaatay Saciid Cabdullaahi Dani oo madaxtooyada ayuu ku qaabilay arrimaha looga hadlaysanayna waxay ka mid ahayd isweydaarsiga macluumaad fariimo dhinaca Ethiopia ka yimid oo markaasi uu xambaarsanaa qonsulku oo uu la wadaagayay Saciid Cabdullaahi Dani sidii waxa weeye la isku ogaan lahaa shirkan baa marka daba socda marka Tagese markuu hadlay oo ay soo shireen kadib ayaa Puntland mowqifkeeda iyo go'aankeeda ay qaadanayso ay ku dhawaaqaysaa ilaahu noo saal dalkii Soomaaliya waa la kala qaybiyay inba meel bay u booday ilaahay uu isku kaan soo celi taasi waa midda waxa kale oo Dani la filayaa in qodobada soo socda uu ku daray doono ama uu ku daray dadkii sheekada markaas la fadhiyay ay sheegeen in madaxweynuhu uu yiri Somaliland sida kuma tagaysay waa la isku soo noqon doonaa oo waa la isku imaan doonaa Soomaali meel bay isku imaan doontaa ku wada hadli doontaa lama garanayo markaas wuxuu ugu goleeyay si kastoo noqotaba Puntland daqiiqadaha inagu soo aadan baa warkeedu yaa baraha bulshada la soo gali doonaa oo arki doontaan oo ka dhigi doontaan waxyaabaha ay soo waday la soo goconaysay maalmihii ugu dambeeyay ay la aamusnayd waaye inta markan kaga imaado dhinacan diblomaasiyadda guulo waaweyn bay dowladda federaalku ka soo hoysay gaabisna wali waa jiraan
dhinaca caalamka markii la yidhaahdo hadday noqoto golaha nabadda iyo amniga africa, hadday noqoto midowda africa, hadday noqoto urgoboleedka IGAD, hadday noqoto ururka jaamacadda carabta, hadday noqoto ururka GCC dalalka waxa weeye isku taga imaaraadka iyo wadamada carabta, hadday noqoto midowda africa, hadday noqoto qaramada midoobay, hadday noqoto caalamka dalalka waaweynba intaba waxay cambaareeyeen go-aankaasi fulaynimada leh ee Israa'iil ay u qaaday aqoonsi qayb ka mid ah Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya inay dal ay u aqoonsato. marka guul weyn baa xagga diblomaasiyadda iyo dharbaaxooyin waaweyn baa gaaray kooxahaasi huwantay markaasi iswata ee aan iswadan karin. dhinacan marka aynu eegno Yemen, dowladda Yemen ee markaasi Sacuudigu u taageero war bay soo saareen, hanjabaad ayay hawada u soo mariyeen maamulka Soomaaliya, waxayna sheegeen in saldhig walba oo aysan ogeyn oo halkan laga sameeyo iyo meel goob walba oo yuhuudda laga siiyo halkaas inuu bartilmaameed u yahay